asxaabta waa mar kale iyo Ayuub Show waxaan booqday in ka badan 8 wadan iyo 17 magaalo oo guud ahaan caalamka ku yaala waxaana markii aan dalka dib ku soo noqday si weyn ii soo jiidatay shirkadani oo ah mid la tartamaysa shirkadaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dhanka dunida waxaana ka helay adeeg aanan ka helin shirkado waaweyn oo ku yaala guud ahaan caalamka haddaba adeegani muxuu yahay ila soco kaliya si aan kugu sharaxo guud ahaan qaaradda Afrika way adag tahay in laga helo adeeg internet oo xaddigiisu aad u sareeyo isla markaasina jaban balse maanta waxaanu booqan doonaa shirkad casri ah taasi oo laga furay waddanka dhawaan isla markaasina bixisa adeeg internet oo aad u jaban lehna xawaare aad u sareeya waxaana ay tani caawin doontaa dhammaan dhalinyarada sida joogtada ah u isticmaasha internetka waxaana ay tani sidoo kale abuuri kartaa fursad nololeed oo wanaagsan oo ay sabab u noqotay shirkadani dhanka kale shirkadani ayaa adeegan ka helay waxa uu yahay adeega 5G oo badi ku yar wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika tanana waxay noqonaysaa arrin kale oo cajiib ah oo ah horumar laga sameeyay dhanka tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta arrinta kale cajiibka ayaa iyaduna waxay tahay in dhammaanba markaad booqanayso xarumaha kala duwan ee shirkadani Soltelco aad ku arkayso dhalinyar ka yar da'da 30 taasi ayuubaan aad iyo aad ay dhiirigelisay runtii waxaana sidoo kale cajiib ah in shirkadda Soltelco ay dhiirigelisay dhalinyaro fara badan oo boqolaal ka badan guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka isla markaasna ay shaqo abuur u sameysay iyadoo taasi qayb ka qaadanaysa horumarka dhanka dhaqaalaha ee dalka guud ahaan waxaana Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Soltelco uu ka warramayaa adeegyada ay bixiyaan ka shirkadahan shirkadda Soltelco waa shirkaddii ugu horeysay Somaliland waxaa la aasaasay 1993 taasoo hadda dib u soo curatay iyadoo bixinaysa adeegyo casri ah adeegyada shirkadda Soltelco bixiso waa dhammaan adeegyada isgaarsiineed oo ay ugu waaweyn marka adeega internetka mobilka lagu isticmaalo ama waxaanu naqaano internet mobile broadband iyo sidoo kale adeega maaliyadeed ee cash plus oo ah adeega isku dirista lacagta shirkadda Soltelco kaasi oo qofku markaas si fudud lacag ugu heli karo qof ugu diri karo isaguna uu ku dirsan karo keenista adeegani internetka ee jaban xawaare sarana leh kaasi oo ay dalka keentay shirkadani ayaa waxa ay qayb ka qaadanaysaa horumarinta waxbarashada dhalinyarada guud ahaan maadaama uu saamaxayo dhalinyarada internetkani jabani inay si fudud dunida wax uga baran karaan sida jaamacadaha dunida ugu qaalisan ee Harvard iyagoo jooga magaalada Hargeysa waxaana tani fududeysay shirkadani oo ah shirkadda dhalinyarada ee Soltelco ugu dambeyn Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu ka warramayaa hamiga guud ee shirkadda Soltelco hamigayga dhow ee mustaqbalka shirkadda Soltelco waxa weeyaan inaan noqono shirkadda ugu xawaaraha sareysa uguna qiimaha jaban marka guud ahaan dalka dhinaca internetka iyo guud ahaan adeegyada isgaarsiineed su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay sababta u fududeysay shirkadani inay muddo kooban ku gaadho heerkani waxaana uu Maxamed ku jawaabay sidani sababta ugu weyn ee maanta shirkadda Soltelco keentay in heerkan ay soo gaadho waxa kamid ah in dabooshay baahi markaas suuqa ka jirtay oo ay qabeen bulshada iyo dhalinyarada oo ah in dadkeenu helaan adeeg tayadiisu sareyso qiimihiisuna markaa aad u jaban yahay anaguna mar walba waxaan ku dadaalaynay inaan baahida daboolno ay qabaan bulshadu haday noqoto adeeg quality-giisu fiican yahay ama tayadiisu iyo qiimihiisana markaa ay qiimaha ugu jaban ku helayaan guud ahaan dalka muhiimadda muuqaalkeenana waxa uu yahay daawade in guud ahaan si weyn dunida loogu tartamayo horumarinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta waxaana booqashada shirkadani Soltelco ee Ayuub ahaan ay tustay in shirkadani ay qayb weyn ka tahay horumarinta dhalinyarada guud ahaan maadaama ay keentay internet leh xawaare sare aadna u jaban kaasi oo la tartamaya guud ahaan wadamada caalamka ku xidho Ayuub Show
lana soco muuqaal cusub.